kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka hayaan oo aan bishiiba 2 goor idiin soo gudbino. qaybta 26aad ee barnaamijka hayaan waxaan toddobaadkan uga hadli doonaa muhiimadda weyn ee ay leedahay in khawaarijta al-shabaab laga xoreeyo guud ahaanba dalka Soomaaliya iyadoo sidoo kalena aan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doono kaalinta culimada Soomaaliyeed uga aadan la dagaalanka xagjirnimada iyo kooxaha ka been sheegaya diinta Islaamka amaba sida qaldan u turjuma. waxaan goordhow idin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ka hadlaya arrimahaasi iyo sida ay waajibka u tahay inaan loo kala harin dagaalka lagula jiro khawaarijta al-shabaab ee ka socda qaybaha kala duwan ee dalka Soomaaliya. hase yeeshee dhegeystayaal aan ugu horreyn barnaamijkan ku bilowno khudbad uu madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u jeediyay shacabka Soomaaliyeed isagoo isla markaana fariin gaar ah u diray naftood hurayaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa difaaca dadweynaha. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale baaq gaar ah u jeediyay culimada Soomaaliyeed isagoo ku ammaanay sida joogtada ah ee shacabka Soomaaliyeed ay uga wacyigeliyaan sida khawaarijta al-shabaab ay uga been sheegaan diinta Islaamka. maalintii la ii dhaariyay talada dalka ilaa maanta waxay dowladda Soomaaliyeed mudnaanta koowaad siisay sidii dalka looga xoreyn lahaa cadawga oo aniguna aan tuutaha u xirtay safka hore ula galay geesiyaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliya. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa kariimka suuratul Hajj nagu yiri udina lilladheena yuqatiluna bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. walaalayaal dowladdeena iyo ciidankeenuba way ajiibeen amarka Ilaahay. saacadan aan idinla hadlaayo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ayaa taagan furimaha hore ee dagaalka oo diyaar u ah inay naftooda u huraan diintooda, dalkooda iyo dadkooda oo ay calanka ka qaadaan halkii ay soo gaarsiiyeen raggii iyo dumarkii ka horreeyay iyaga. walaalayaal daqiiqadan aan idinla hadlaayo caruur badan oo Soomaaliyeed ayaa agoomoobaya, waalidiin Soomaaliyeed ayaa gablamaya, gabdho iyo hooyooyin Soomaaliyeed ayaa iyagana asay qaadaya. sababtuna waxay tahay in la fuliyo amarka Alle loogana jawaabo dareenka muwaadinka Soomaaliyeed ee raba in la ilaaliyo cizigiisa iyo sharafkiisa iyo xurriyadda uu Alle siiyay maalintii uu dhashay. cadowgiina xasuuqay Oktoobar 14 naguna xasuuqay magaalo kasta oo Soomaaliya ku taal iyo hotel kasta iyo isgoys kasta oo ku yaal Muqdisho wali way soo malabsanayaan si daadinta dhiigga dadka Soomaaliyeed ee qaaliga ah. haddii ay fursad kale helayaanna gumaadkaas iyo kuwo kale oo ka xanuun badan ayay wali nala maagan yihiin. nasiib wanaag walaalayaal maanta halistaas intii hore way ka yar tahay, welise ma dhammaanin. wiilashaas iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee ciribtirka cadowga ku dhiiraday waxay u baahan yihiin garab istaagiina. dowladda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay garab istaagiina. inta aad haysataan wiilashaas iyo gabdhaha iyo madax ay ka go'an tahay ilaalinta sharafka iyo ciziga dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo weliba gargaarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala. waxaad ku bishaaraysataan niyaddana ku dhaadataan in aan guulaysan doono cadowga Ilaahay ee khawaarijtana aan jabin doono. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. walaalayaal guusha aan ku xisaabtamayno maaha mid meel cidla ah ka imaanaysa. waxaan ku bedelanaynaa kumanaan dhiigga wiilasheenna iyo gabdhaheenna ah iyo ilimada kumanaan kun oo ah qoysaskooda iyo ehelkooda si aan loo baylihin dhiiggaas
loogana miro dhaliyo sababtii ay u shahiideen, waxaa waajib ah in qof kasta oo inaga mid ah qaato kaalintiisa uga aadan, ku beegan, oo uu halganka wax ku darsado maanta socda. waa in aynu isugu jirno qof ka halgamaya furimaha hore iyo mid heel la daba taagan geesiyaasha. inkasta oo walaalaha iyo saaxiibada caalamkana garab taagan yihiin intii karaankooda ah, kuna mahadsan yihiin, haddana cadowga waxa uu dul hoganayaa annaga soomaalida ah. waajibka koowaad waxaan u saaran yahay dadka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan madaxdooda. sidaa darteed, dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal, maanta waxaan mimbarkan fariimo guud iyo kuwo gaar ahba uga dirayaa qaybaha kala duwan ee bulshadeenna, caanka ku ah isku hiilinta iyo isku hilbadirirka xilliyada ay adag tahay duruufuhu. fariintayda koowaad ee ugu horeysa waxaan u dirayaa qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida, gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka difaaca dadweynaha ee loo yaqaano macuulisleyda ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka. naftooda horayaal, qaranka Soomaaliyeed wuxuu ku dhisan yahay kuna dhisnaan doonaa, xorriyadiisuna ku bulaali doontaa dhididkiina iyo dhiiranaantiina. waxaad xambaarsan tihiin ammaano ay halgamayaal hore u hureen naftooda. waxaad indho iyo mustaqbal u tihiin 20 milyan oo Soomaali ah oo maanta nool iyo jiilal badan oo soo socda. jiilal aayaha noloshoodu ku xiran tahay waxa aad maanta u tacbaysaan. ciidankeenow, waxaad tihiin geesiyaasha lagu seexdo. dardaaranku waa isla kii nin lagu seexdow ha seexan, xil baad sidaaye ha seexan. geesiyaal, waxaan idin ballan qaadayaa, sida aad mar horeba iga aragteen, inaan idinkula noolaado safka hore ee jihaadka, idinla qaybsado xanuunka iyo farxadda guusha jihaadka. waxaan idin ballan qaadayaa in aan dhammaan walaalihiina ummadda Soomaaliyeed idinsoo daba fariisiyo oo ay idin noqdaan garab iyo wehel aada dugsataan. maalintii aynu go-aansanay inaan halgan galno oo aan dulliga ka dulqaadno ummadda, ayaynu guulaysanay. ilaahay idankiina guusha kama dambaysta ah way noo muuqataa, waynu xaqiijin doonaa in sha allah. isla markaana waynu ilaashan doonaa markaan xaqiijinno kadib. naftood horayaalow, waxaan idin ballan qaadayaa in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay mar walba xasuusan doonaan kaalintiina shariifka ah. isla markaana qof walba oo jihaadkan qaab ama mid kale uga qayb galay loo xusi doono sida ugu munaasibsan uguna suurtagalsan, hadday ahaan lahayd dallacsiin, bilado ama siyaabaha kale ee la isku qadariyo ama la isku xuso. ummadda Soomaaliyeed ee walaalayaal, ciidamada geesiyaasha ah ee ku jira furimaha dagaalka aad ayay u dhibaysaa marka ay maqlaan wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo ku dhimanaya khilaafaad siyaasadeed iyo kuwo qabali ah. waxay ka jeclaan lahaayeen, kulligeen aan ka jeclaan lahayn, in wiilashaas Soomaaliyeed ay iska barbar dagaalamaan oo ay ku wada guulaystaan, iyagoo meel uga soo wada jeeda cadowga koowaad ee ummadda Soomaaliyeed. saan horeyba u iri, cadow waa hal,
waana shabaab. walaalayaal waxaa maanta alla hortii idinkaga codsanaya in aydan wiil iyo gabar dambe dhiiggiisa nooga daadan wax ka sokeeya jihaadka lagu cirib tiraayo khawaarijta oo ah cadowga dadka, dalka iyo diinta. fariintayda labaad waxa ay ku socotaa culimada Soomaaliyeed. marka hore waxaan leeyahay jazaakum allahu khayru ljazaa. ilaahay ha idinka abaal mariyo sida aad xaqa ummadda Soomaaliyeed ugu caddayseen una tusteen in khawaarijtu ay ku xadgudbeen oo ay ka been sheegeen diinta Allah. waxaan culimada ka codsanayaa inay sii xoojiyaan dadaalka oo ay noqdaan kuwa jiidaha hore ee dagaalka ku dhiirigeliya ciidanka halganka kula jira khawaarijta, ama ay noqdaan kuwa ka shaqaynaya taakulaintooda. walaalayaal fariintayda saddexaad waxay ku socotaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed. waxaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed kuwa hadda xilka haya iyo kuwa horay u soo hayay iyo kuwa hadda ku taamaya inay mustaqbalka hogaamiyaan dalka, waxaan uga mahadnaqayaa aragti dheerida iyo fahamka ay nala fahmeen in cadowga koowaad, kan labaad iyo kan saddexaadba ee Soomaaliya uu yahay nimankaas xadgudbay ee 15 sano Soomaaliya u afduuban tahay ayagoo dhiigga shacabka qubaya si ay u farax geliyaan ama ku xumaynayaan qowmiyado kale oo caalamka ku nool oo dalalkooda iyo danahooda iyagu hagaagsaday. waxaa kale oo aan ku ammaanayaa in ay nala garteen in waajib ay tahay in juhdiga iyo awoodda ugu badan la geliyo dabargoynta fikirka xagjirka ah ee ay arxanlaawayaasha khawaarijtu ku abtirsato. waxaan si gaar ah uga codsanayaa siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha Soomaaliyeed in wada ogol iyo isqaadasho iyo wada jir lagu xalliyo wixii aragti kala duwanaan ah, isla markaana aan marna la siyaasadayn dagaalka lagula jiro khawaarijta. waa hagaag dhegeystayaal, intaasna aan uga gudubno khudbadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu u jeediyey shacabka Soomaaliyeed. welina dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka hayaan oo aan bishiiba 2 goor idiin soo gudbinno. hase yeeshee aan markan dhegaysanno qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay Suldaan Cabdiqani Qorane oo ka mid ah culimaadudiinka Soomaaliyeed, waxaana uu ugu horreyn ka hadlayaa waxa shareecada islaamku ay ka qabto in lala dagaalamo kooxda khawaarijta al-shabaab iyo dhibta faraha badan ee ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah. dadka muslimiinta afowda ma aha. dadka muslimiinta inay dowlad ahaadaan waa diin, inay kala dambeyn yeeshaan waa diin. yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum fain tanaasactum fi shayin farudduuhu ila allahi warasuul buu ilahi leeyahy subxaanahu wa tacaala. kuwa iimaanka lahow allana adeeca, rasuulkana adeeca, kuwa taladiina hayana adeeca. kuwa talada hayana culimmadu waxay ku fasireen inay yihiin dadka mas-uuliyadda dowladnimo gacanta ku haya iyo dadka cilmiga diinta gacanta ku haya ee culimmada rabbaaniyiinta ee raasikhiinta ah ee diinta sida wanaagsan u yaqaana, laguna yaqaano inay si wanaagsan ugu dhaqmaan. dadka iyaga in taladooda iyo amarkooda iyo sidii ay dhaafin weydo oo ay u arkaan markay eegaan ilaahay sharcigiisa subxaanahu wa tacaala iyo duruufta markaa meesha iyada ku xeeran oo waaqicaas ku dejiyaan daliilkii ma inta uu dhaafin waayo in dadka iyaga looga dambeeyo. dagaalka marka khawaarijta marka la fiiriyo diinta marka dhankeeda laga soo eego, dadka muslimiinta ah meel isugu yimid, dadkooda madaxda ah ee talinaya, gafaf ba ha yeeshaan, qaladaad ba ha yeeshaan, gaabis ba ha yeeshaan, in inta seef loo qaato laga hor yimaado lala dagaalamo, diinta ilaahay xaaraan bay ka dhigtay. nabiguna wuxuu leeyahay salawaatullahi wasalaamu calayhi, waxaa waajib idinku ah maqal iyo adeecitaan iyo inaad u dulqaadataan waxyaabaha dhacdhaca ah xataa taraw kufran bawaaxan
lakum min allahi burhaan yacni jeerad ka arkaysaan gaalnimo cad oo ilaahay agtiisa aad xujo uga haysataan sidaynu ka warqabnana ku dhaqanka diintu waa soo kobcayay waana sii kobcayaa oo xijaabkii baa meel walba maraya oo qur'aankii oo soomaalidu ay caanka ku ahayd baa maanta laga daraaseynaya culumtiisii qiraa'aadkiisii baa la baranaya oo tartanka adduunka ka dhaca tartanada adduunka ka dhaca loo galo ilaahay kalaamkiisa in lagu tartamo dadka kaalimaha ugu sarreeya ka qaata meel ay ka soo galaanba waa un soomaali iftiinka noocaasa meeshuu ka faafayna waa dalka soomaaliya gudihiisa weyn marka dadkaas muslimka ah oo dowladdoodii dhistay in lagu baxo ma bannaana cidda u leh sharciyad inay iyagu ama dad ammaanka sugaan ama awood isticmaalaanna waa iyaga weyn in iyaga marka awood loo isticmaalo lagala hor yimaado sax ma aha marka la fiiriyo qawaaniinta ay dowladuhu dhigteen oo la isku raacsan yahayna waxaa la yidhaahda maaragtay ixtikaaru lcunf in dhibaataynta iyo in awood la isticmaalo gaar loo yeesho cidda iskale dowladda weeyaan nimanka marka dowladdiiba waxay kaloo yimaadeen dagaal waxay ka dabageeyeen dadkii shacabka ahaa oo dowladda ku hoos noolaa waxay ku darsadeen inay ku kabaan inay yidhaahdaan dowladduna waa gaalo dadkuna waa la gaaloobeen saa darteed dhiigooda iyo maalkooda iyo cirdigooda waxba kala hambayn mayno taa iyadana alla agtiisa daliil looga soo heli maayo sunnada nebigana kuma taala salawaatullahi wasalaamu caleyh marka kooxdu markay noocaas oo kala noqoto waxaa la yidhaahdaa fi'a baaqiya ama waxaa la yidhaahdaa alkhawaarij ama waxaa la yidhaahdaa daa'ifa mumtanica qolo intay awood isbiday iyagu gooni intay isu taageen dagaal ku qaaday wixii dadku ay haysteen oo nidaamka ahaa koox gooni u goosata ah amaba se xadgudubtay oo intay iyaguna shawka iyo hub yeesheen isku dayay inay maquuniyaan ay ka hor yimaadaan nidaamkii jiray ama koox kuba baxday nidaamkii oo doonaysa afgembi inay u ridaan saddexda kooxoodna waxaa sharcigu uu ka qabaa in lala dagaalamo oo la iska dhiciyo ilaa iyo inta nidaamka iyo kala dambeynta iyo deganaanta uu soo noqonay waayo fasaad bay ka shaqaynayaan ilahina fasaadka ma jecla subxaanahu watacaala mufsidiinta dadka ah ee dadka hadlayana rabbi ma jecla subxaanahu watacaala marka dhanka sharciyada marka laga fiiriyo oo dhinaca ah waa saas markay ku sii darsadaan inay dhibaato geystaan waxaa waajib noqonayso in dadkaas tallaabo laga qaado sidii khaliifkii cali bin abi taalib radi allahu canhu uu sameeyey oo kale intay xukun ku qabsadeen oo la doodeen oo yidhahdeen xukunka ilaahay baa iskale adigu ma aad lihid baa wuxuu yidhi waxaa annaga noo ballan maalinka dhiig xaaraana daadisaan markay dhiiggii xaaraanta ahaa bilaabeen inay daadiyaan oo ay nin saxaabi iyo xaaskiisii isku kordileen oo weliba xaaskii oo xaamilo ahayd oo uur lahayd ilmihii ay ka soo rideen ma garanaysaa markaasaa waxaa uu bilaabay cali inuu la dagaalamo oo uu laayo ayaguna xaasas iyo odayaal iyo caruur iyo maato iyo magaalada muqdisho lagu nasan waayo qaraxa tarab oo waxa dadka loo qarxinayana dadkii la qarxiyay aysan garanayn ayaga laftoodana dadka meesha ku qarxay oo ku dhibaatoobay sababtay wada laayeen aanay garanayn heerka marka la gaaray waajib waxa ah dowladdii u dhaaratay dalkan iyo dadkan iyo diintan inay saddexdaba ka badbaadiso nimanka qowleysatada ee dooxatada ah Soomaali baan tirtiraynaa oo aan baabi'inaynaa iyo ma baabi'inaysaan qowleysatatiina ummadda la idinka qabanaya naftiinana waa la idinka qabanaya marka dagaalkaasu waa dagaal xaq ah oo nimanka lagu qaaday oo dalka lagu xoreynayo oo diinta lagu xoreynayo oo dadka lagu xoreynayo weeye madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu bilihii la soo dhaafay oo dhan uu ku sugnaa jiidaha hore ee dagaalka ka dhanka ah qawaarista al-shabaab marka ma la dhihi karaa waajib ayay ku tahay shacabka Soomaaliyeed inay ku garab istaagaan dagaalka tan kale maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si meesha looga saaro fikradaha qaldan ee ku salaysan waxduminta madaxweynuhu wuxuu dalbaday mar hadda laga joogo bilo ama sanadba laga joogo shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan inay u heeliyaan in gacan lagu siiyo dalkan Soomaaliya ah ee dhibaatadiisa hadda ugu weyn ee uu qaba ay tahay jiritaanka kooxda la yiraahdo shabaab ee khawaarijta in gacan laga siiyo markuu dhaco istinfaarka noocaas waajib waxa noqonaya in loo heeliyo dalkii in loo heeliyo dawladii inuu qofku u heeliyo dantiisi oo shabaab oo lala diriro waxay ka dhigan tahay adiga oo jiritaankaaga u heliyay ka dhiganta marka mujtamaca Soomaaliyeed qaatibatan waajib waxa ku ah in inta waxa kale oo dhanba la dhigo cadawgaas cidna aanan gacal ku ahayn oo cidu u turaya aanay jirin oo cidu la jira aanay jirin oo cidu garab siinaya aanay jirin
inay soo afjaraan oo ay xidid siibaan oo fikirkan wax duminaya meesha ay ka saaraan oo ummaddu waxay lahaan jirtay risaalo oo ummaddu waxay lahaan jirtay higsi oo ummaddu waxay lahaan jirtay han bay lahaan jirtay intiiba meesha waa ka baxeen marka si ummaddu risaaladeedii iyo higsigeedii iyo hankeedii iyo hamigeedii ay u gaadho cabsidan iyo khoofkan nimankan ay abuuraan iyo digtan iyo damtan iyo qaraxan si meesha looga saaro shacabka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan aniguna kala qaadqaadin oo qolo walba mas'uuliyadda ay ugu dhacaysa si u qalanta mustawahooda iyo heerka ay ka galaan mujtamaca in dagaalka inta la isugu tago nimanka la soo afjaro marka dagaalkaas waa dagaal waajib ah qof walbana kaalintiisa oo culimadu ay kaga qayb qaataan cilmigooda iyo fatwadooda iyo ilaahay kuma samadiiday waxa la yiraahdo inay ummadda u bayaaniyaan wadadana inay tahay wadadii jahannama lagu aadahay waayo nabigu wuxuu ku sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi markuu tilmaamayay tilmaamaha iyo awsaafta aad ugu liidata oo bini aadan lagu sheego wuxuu yiri kilaabu ahli an-nar al-khawarij kilaabu an-nar iyo kilaabu ahli inta baa soo arurtay waa eeyadii naartu yiri oo naarta markay galaan eeyay ka noqonayaan oo culimadu waxay yiraahdeen oo maxay tahay ma naarta eeyay miyaa gala mise eeya dadka qaarkood ay noqdaan waxay yiraahdeen maya sida ay dadkooda ugu wacwacaleeyaan oo u dhibaateeyaan oo ay hadii lagu sisdaayo uusan ku sii deynin ilaa intuu ku dhibaateeyo ba waxay naarta ka dhax noqonayaan wax sidaas oo kale ah noocaas oo kale ah marka mujtamaca Soomaaliyeed waxa waajib ku ah si ay dantooda u gaaraan oo maslaxadooda u gaaraan oo dawladnimadooda u taabagasho amaankooda u sugmo inay nimankan isugu tagaan meel uga soo wada jeedsadaan qof walbana karaankiisa khawaarijta al-shabaab waxaa caado u ah inay ka been sheegaan diinta islaamka oo ay siyaabo qaldan ugu tarjumaan daayarta Soomaaliyeed marka maxaa looga baahan yahay culimada diinka Soomaaliyeed maanta shabaab iyo khawaarij waa yaxaas dhaawacan oo kalluunka isugu yimid mujtamaca Soomaaliyeedna dhinac bay uga soo wada jeedaan dawladdiina oo madaxweynuhu uu hogaaminayana dagaal bay kula jiraan laba tiir bay ku taagnaayeen tiirka koowaad waxa uu ahaa diin laga been sheegay oo ilaahay wuxuusan dhihin lagu fasir ilaahay qowlkiisa oo dad muslimiina oo tukanaya oo soomaya oo salaadayo ahlu quraan oo abka ab muslim u soo aha inta gaalnimo lagu xukumo giirka laga bireeyay soo ashaadanayo la ilaaha illa allah leh ay yiraahdaan la ilaaha illa allah waxa ku tarto garanaysa ama ay yiraahdaan yani qofka kan waxa lagu dilayaa fil xilli wal xarab ilaahay baana sidaa yiri oo marka aayado aanan qabanin aayad ku taalo quraanka oo sheegaysa hebel giirka laga bireeyay ma jirto iyo hebel dulmi lagu dilo xadiis sheegayna ma jiro wad garatay Soomaa bal ay gaaladan gaalnimadooda loo dili karin inay ku soo weeraraan iska dhicinayso ma ogi laakiin gaal buu yahay baan u dilayaa diinta ilaahay kuma taalo macdalaha dadka muslimka inta soo xaq laha waxa ku soo haray marka aayadihii ay daliishanayeen tiir buu ahaa oo ay beenta ka sheegayeen axaadiistii ay beenta ka sheegayeen oo ay u adeegsanayeen meel aysan daliil u ahayn tiir buu ahay ku taagnaayeen tiirka labaad waxa uu ahaa wiilal ay maskaxdii ka dhaqeen oo dooriyeen oo intay go'doon kaga dhigeen meelaha ay joogaan oo bahallada ku yihiin oo macluumaadkooda ay ka jareen oo intay cajalada ay soo duubeen amiiradooda dhigiyabyada ah oo dooxatada ah ay say ugu shubayeen fikirka qaldan hariya habeen aaminay mujtamacan uu ka soo jeeda ee dadkiisi ah inay yihiin dad ay tahay in adduunka laga suuliyo oo marka laga dhigto sidii hubkii la qarxinayay oo kale oo laga dhaadhiciyo adigu isa soo qarxi meelhilaaya tag gaarigan la tag ku dhufo adigana ku dhimo markaad adigu dhimatood aakhir aad ka bacdi waan guuleysanaynaa wad garatay Soomaa labada tiir bay ku taagnaayeen tiirkii koowaad culimada ayaa goysay waxa dhiri diintana been baad ka sheegaysaan dooxataadna tihiin ilaahina waad ka furataan iyadii naartii alla sheegay idinka weeye taa iyada shaatiga waa laga bixiyay oo maalinka maanta ah nin u haysta inay ahlu diin yihiin ma jirte inay yihiin dad yani dayday ah oo dooxata ah oo dhuljiif ah oo ilaahay kuma samadiiday sida dibqallooca iyo ummad u dhibaateynaya baa ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacsanta aad buu u mahadsan yahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa Suldaan Cabdiqani Qorane oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed waxaana intaas noogu dhamaaday barnaamijkeennii hayaan ee toddobaadkan tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo